بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. waxaan soo wadinay suuratu النازعات. suuraddaasaan soo maray. suuraddaas markaan soo marayna waxaan nidhi mawaadiic badan bay ka hadlaysaa suuraddaasi, laakiin waxaa u muhiimsan 9 arrimood 9 arrimood baan sagaalkii arrimood ay ka hadlaysay waxaan u malaynayaa 3 ka mida inaan soo marnay. waxaa noo hartay markaas 6 baan noo haraysa. sagaalkii 6 baan noo haraysa. tan ugu horeysa waxay ahayd allah subxaanahu wa tacaala oo ku dhaaranaya malaa'igtiisa oo sugahaya inay dhici doonto maalin ummadda lasoo saari doono inay jirto. waa tii aan soo dhaarnay oo naasicaati waa tii ilaahay ku dhaartay malaa'igtii xoogga nafta ku siibaysay oo gaalada ka siibaysay iyo kuwii sida maaragtay ladifan uga siibaayay muuminiinta ka siibaayay. malaa'igtaas waa ka ilaahay uu ku dhaartay oo markii dambe yidhi waa la soo saari doonaa dadka maalin maalmaha ka mid a. masalada labaysaa waxay ahayd hadalkii ay ku hadleen nimankii mushrikul caraba oo diidanaa in ummadda la soo celin doono. waa kuwii lahaa yaquuluuna inna lamarduduun ma nala soo celinhayaa maaragta fil xaafira micirib baa naloo soo celinaya hadda haddii aan dhibanay kabacdi misna adduunyadii baa naloo celinaya saasay wadaan maa aidaa kunaa cidaaman akhira annagoo lafa baariyooban miyaa nala soo celinaya istiisay darray uga jeeda. masalada kale oo saddexaysaa waxay ahayd muuse iyo waxaa laga hadlay iyo fircoon. hal ataaka xadiidu muusa waa tii lasoo sheegay iyadoo lasoo gaabinayo qisadiisa laga soo hadlay. 3 arrimood baa laga soo hadlay. 6dii kalena waqti marka tan ugu horeysa waxaa weeye dadka diidan la soo celinhaya dadku hadduu dhinto ayaa waxaa la tusinayaa xujo caqliga la tusinaya xujo kooniyaa koonkaa laga tusaya xuja ruuxa waxaa lagu qanciyo waxaa ka mid a in daliil lagu qanciyo oo aayada qur-aan loo sheego. haddii ruuxan aayad rumaysani kaaba yeeli maayo, laakiin caqli ahaan baa lagu qancin karaayo samaawaadka iyo dhulka iyo waxyaalahaasoo dhan waa lagu qancin karaa. marka daliilku hadda caawa wuxuu taagan yahay samaawaadka iyo dhulku taagan yahay. ayaga waxay yidhahdeen suuragalku maahan haddaan dhammaano oo lafahaygu baariyoobaan oo ciidda aan galno in la soo celiyo wax suuragalaba maaha. markaasaa waxaa la leeyahay oo allihii samaawaadkan saan u sameeyey inuu adinka idin soo celiyo iyo inuu samaawaadka sameeyo kee adag maaragta. qofka caqliga leh marka waa garan karaa. waa adigoo yidhi oo kale axadka samayn kara maaragta maroodiga quraanjo ma samayn kara adoo yidhi oo kale. ilaahay samaawaadku sameeyey marka dadkan masaakiinta inuu inta misna soo celiyo keena adduunyada waxba maaha taas. arrintaasa marka la taabanaya waa midii afraad wey. 9kaas kuu kala socnaaday. a antum adinka miyaa buu leeya ilaahay ashaddu daraansho badan khalqan abuurista ami samadaa daran. samaawaadkaaba anagu aan abuurnay samaawaadka abuuristooda miyaa daran mise adinka abuuristiinaa daran. a antum adinka miyaa ashaddu daraansho badan khalqan abuurista ami samadii baa daran. su-aashaas marka loo soo jeedinayo su-aal ma ahan maaragtay la weydiinayo inay ka jawaabaan oo yidhaahdeen maaragtay ayaga cilmi laga qaadanayo oo wax jira ay sheegayaan maaha. maxaa yeele ilaahay baa hore uga jawaabay. aayadda ilaahay markaa kor wuxuu ku yidhi la khalqu samaawaati wal ardi akbaru min khalqi nnaas.
samaawaadka iyo ardada la abuuraa waxay ka weyntahay dadkoo la abuuraa marka ayaga inuu jawaab kama rabo laakiin taqriir wax la jiro waa qalbigooda lagu sugayaa waxa la leeyahay samaawaadka abuuristooda miyaa daran mise adinka abuuridii Allah idin abuuro samaawaadka daran ma aragtay maxaa yeelay samadu inta aragtay leegta suuragalna maahan allihii samaawaadka abuura ayaga inuu soo celi waayo wax suuragal ma أنتم أذنك مية أشد الدران شبادان خلقا حق أبورست أمي السماء الدران شبادان معناها الدران شبادان توحوي ما وحى بدن إن السماء الأبورة مساعدك إلا يسوعي معناه ساسوي إن السماء الأبورة هذا ما عرفت حاجة يقول له في رواية لكن إلهي وحى البواسو من أصير لما نكر إلهي شيء كان أقول عرس قصة كانوا في ذي مرة وحى البواسو من إلهي لكن أنا حاجة يقول له في رواية إن روح لنتل السعودية يسمى إلا أبورا سمى إلا أبورا نوع المعرفة تاسوي مرك الله سبحانه وتعالى قلت بس شيء كيفية خلق السماء سماء سيد الله السمية سيد الله أبورا سماء تنزل لوشي أيضا الرسول قال يا وحدي مناها هو إسأل بني آدم سيد الله أبورا هذه وقت أنا مدخن بني آدم كوح الله أبورا وحملي أيا علوشو يذكر نعه مركز لو برباريا مركز لو ما ركتب الدكتور شراء ساسا بنادك الواقع لكن كيفية خلق السماء ساعتها ونهى إلى وقت واي مركو إلى هاي الشيء qaabku marka uu dhisay wuxuu la tusinayaa waxyaalo uu markuu samada dhisay uu Ilaahay ku sameeyay oo cid kale u sheegin karta aysan jirin rafa'a Ilaahay uu koriyaa samkaha samada jurmigeedu koriyaa jurmiga sanqafka muuqaalkeedu midda doonta kale samadu soo wax ku muuqama jurmigaas ay leedahay iyo muuqaalkaas ay leedahay Ilaahay uu koriyaa waxa gaaban oo lagu dhagan hadii noqon lahayd ka war oo la soo dhaweyn lahaa imtixaan badan baa la qornay waa la fogeyay maaragtay kor baa la yeelay rafacsanka markii Ilaahay uu kor yeelay haddana wuxuu noo sheegay fasawaaha uu ekaytaas maxay tahay waxa weeye wax nusqaana male أنا مال أي كرد منتهي أو دين بري يكفر يقوي استراحة الله لمشي سحواء كرد من الغمار وأتي سورة الملك مئة الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نسخان كأركبيس أرجو كل علواتي مركب كل مرة كأركبيس واحد نسخان سماوات هذا هو حق دالة إيش ما ترى عند سماوات قرب في رسول أو إيش كويس إيش كداري سماعني واحد صغار من كواركس برك إلهي كوريالي جرمي فسواها هذا هو إكي ومعناها واحد صغار ملك تاسوي كينتو معناها دردول الملك ملك كده حلي 6 ملك ملك كده 6 هاي ملك سماه وأقدش إلهي هو مذوبي ليلة هبين كذي وأخرج إلهي وصوبحي وعليكنا أما هو في هذا دونتو ضحاها مالنتين markii samadii la dhisay ba habeen iyo maalin la yeelay habeenkii waa la madoobay maalintii iftiin baa laga yeelay macnu saas weey habeenkii mugdi laga yeelay maalintiina iftiin baa laga yeelay وأقدش هو مذوبية عليه ليلها هبينكي سماد هذا الضحى نقص سمادي سماد هبينكي ولا مذوبية وأخرج إلهي وصوصار وعليكنا أما حديكنا وأخرجه في ضحاها مالنتي وفي مالنتي ولا في أخرج ولا صوصار مالن بلا صوصار وعليكنا لما مالنت وسكن في ساي أما حديكنا وأخرج إلهي وفي ضحاها مالنتي ساسا نكون معانتها مدى هدي تيور لقد بدقها يوكاي هاي روح إلهي هبينكي نو مذوبي مالنتينا وفي
marka akhrajeedaani uu ifiyey ka dhig saasay ku fiican tahay marka samada noocaasa ilaahay uu sameeyey inuu ilaahay uu wanaajiyo oo saa u wanaajiyey miyaa daraansho badan xagga abuurista mise bani aadamka soo celintiisa qofka caqligana waa garanaya samada saas looga shaqeeyey waa arrinteedu adag tahay oo wax laga qaban karin samadii markii laga soo hadlay haddana dhulkii baa loo rumaday walarda dhulkii bacda daalika kaas ka bacdi samaawaadka markii arrimahaas uu soo sameeyey ka bacdi dahaha ilaahay dhulkii uu fidiyey dahaha uu fidiyey oo hadda dhulkii waa la fidiyey markii la yidhi والأرض بعد السماء بعدها إلهي في ديالي سورة كلنا وحي هاي سورة البقرة آية هي الذي جعل لكم الذي خلق لكم من الأرض حياة ثم استوى إلى السماء بحكم الريم فسواهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء marka halkaas ayadaas waxa ku sunaysaa inuu ilaahay markii hore uu ardadii abuuray waxa ku sugan ka bacdina uu dhulkii oo samadii sameeyay markaas ka bacdi tanina maxaa ku tusinaysaa samadii inay horeyso ka bacdina dhulkii la fidiyey marka macnaha waxa weeye isku keeni karaa marka hore waxa la abuuray waxa weeye dhulka la abuuray kabacdina cirkii waa la abuuray laakiin fidintii waa dhulka ku dambeeyey dhulkii markaas ka bacdina fidiyey macnuhu saas weeye والأرض dhulkii bacda dalika kaas ka bacdi markii samada intaa lagu sameeyey ka bacdi dahaha ilaahay uu fidiyey samaawaadka dhulka haddii la yidhaahdo qof bani aadama fidiyey ka hor afar shiikhaa fidisay baa kitaabay ku taala arkay afar shiikh baa fidisay samadii ma dhulkii ma sheekh hebel iyo sheekh hebel sheekh weliba dadka madmadow ah weliba ma garan marka والأرض بعد ذلك دحاها إلهي وفيه كتابة أو واحد كتابة إسرائيل لورا ما أحد موضوع وعلى سقرا كتاب حاليا كله مكتوب وحلا قرأ كل جزء من عليه لكن وحلا في ريا واحد بيشو كيالا سنة النبي هو صحيح الموافق سيء كتاب القرآن الموافق سيء هذا موافق سيء بسويه هذه كسر جدا ومعناه مر وخرافات ولا فتورة يا مر marka Allah subhanahu wa ta'ala markii samadii uu noo sheegay sidii uu abuuray oo uu leeyahay samada anaga sida u sameeynay waanan awoodin macnaha inaan dadka soo noolayno lana tusinayo haddana waxa la yiraahdaa ardu bacda dalika dahaa dhulkii markaas ka bacdi fidiyay markuu fidiyay ka bacdi arrimo kale oo dhulku uu yaray Ilaahay noo sii sheegaya akhraja uu ka soo saaray alle minha dhulkii ma ambiyo ka soo saaray ما أها سواد بيد ضمير كسواد يقول قرائن قول كروا اللعية سواد بيد مركه هرا سواد كيما هذا الوقت مركه هدي لوتيري ومركه هرا لوجه هدي اللي هذا قول كلوتيري أنا تقول كأسرع بيد هذا اللي قصوا صار أخرجه صار الله منها سمادي لوكي ما أها بيه بولاي كسوسار بيه كجرا على كسوسار ومرعاها طاقة إلهي كسوسار والجبال بورهينا أرسلها إلهي وكسوي روكي وكسوي بورت أنا مركا وجهنا واحد معناه إنه مفرد روكا كلام وردود لكن معناه وين كجرا روكو ورقاق الأعمار أنتي تاجت وكلمة سجرتها لكن أنا مؤمن روك مرو ويهاي ورها هاي ومش كوي وحنا إيمان دنتا سورة النبأ أيضا أمتاد مشيء
awtaadu macnaha waxaa weeye bahalka taandhooyinka maaragtay marka la dhisayo qoryaha lagu dhiso maxaa la yidhaha Soomaali maxaa lagu dhakowyada dhakowyadaas bay buruhu dhulka u yihiin soo dhakowgaas ma celinaya bahalka la yidhaahdo maxaan ku idhahdaa shiraaca ama baashaan teendhada buruhuna waxay celinayaan dhulkay celinaya shaqadaasay hayaan awood markii ilaahay uu noo sheegay samadii iyo dhulkii waxyaalaha ku sugan oo Allah subxaanahu wa ta'ala haddana wuxuu noo sheegayaa waxa loogu talagalay ujeedada loo sameeyey maxay tahay mataacan raaxayn weeye buu leeyahay ilaahay lakum adinka laydigu raaxaynayo iyo wali ancaamikum nicmoolaydiina baa loogu raaxaynaya waxaas samada iyo dhulku ay barwaaqo leeyihiin samadu waa aragtay ilaahay wuxuu ka yeelay waqti mugdi uu ka yeelay waqti iftiimaha laga yeelay dhulkii waa aragtaayo markii la fidiyey ka bacdi biyaha laga soo saaray daaq baa laga soo saaray iyaa ka faa'iidaysanaya mataacan lakum adinkaa maaragtay ilaahay wuu yeelay arrintaas mataacan raaxayn lakum adinka laydin raaxaynayo iyo wala ancaamikum nicmoolaydi waa xoolihiin ila daaqa ma ogtahay markii dhulku biyo ay galaan waxa ka soo baxaya nabaad baa ka soo baxay nabaadka ka soo baxana xoolaha daaqaya kulligay u noqonayaan markaa waxaasoo dhan insaankay u noqonayaan xoolihii adaa cunaya maaha marka insaan adduunkii oo dhan u khidmaynayo isaga u adeegaya oo haddana aan ogeyn nicmadaas ku socota ka war samadii waxyaalaha ku sugan oo barwaaqada adeeg ku adeegaya maalintii oo kale waa ku shaqaysanaysaa habeenkii maskaxda ku degaysa ma garatay waa nicmo maaragtay ilaahay uu kuu siiyey barwaaqadan maaragtay dhulka laga soo saarahay oo wax adigu aa helayso ilaahay intaa ku samaynaya marka inaad fahamtaa la rabaa midka diidan hadda waaba diidaya kaasi laakiin maxaa la rabaa ruuxa garanaya nicmadan ruuxa garanaya waxaa laga rabaa in uu nicmadaas xusuusto oo allihii nicmadaa haysiiyey uu u qiro horta alla inuu dadkiisa soo celinayo haddii la soo celinayaan xisaab ay jirto waa la soo celinayaa kaliya maaha waa arrintii saabaa daba taala أأنتم أذنك بي أشد دران شبضان خلقا أبو رسل أم السماء مثل السماء دران شبضان إن تدخل سعلي إن سماء السماء كي دران شبضان كي أدق معك أنا حاجة يمثل الله في السماء أدق ونبضان لكن إلهي وحرم وسعولي بناها إلهي مؤسس السماء رفع وقرية لسمكها جنبي وقرية أما ساقاف كيني أما مقال كيني فسواها وكيسي ميلو سخان لما كمسكنا سماني إلا عور بفير إلا واقع أنه إلا هذا أنه يقول يكون ريه دواء وربا كان فيه كرنين ميل يركو يسكبد الشمال كيسي هدي يقول الإنجنير كستو خطر أورسو هل سنة مكي اللي جوا حركة سعيد ميل كيسو دنتين مركا يقول يسكد الدمى هي هدي أنا إرادة مانتي guriga asaga iska ahaada sida soo leela yaabay engineer dhismay jiro asaga iska dhismay waa leela yaabay laakiin samada aan caadi isaga aata hadaa iraada ka war waa iska caadi samada waa iska dhisantay dad badan oo mataqaana professorada waxay aaminsan yihiin in samadu iska ahaatay wax iska ahaada ay yihiin caadi iska wixii iyagu ay garan waayaan oo ilaahay awoodiisa ku yimaada وحيلي هو واحد كأهذا ما لكن هو يفهم هيا اللي يراهد ساعتها يضرب نفسه تعالى يضرب كعادية كايلة صورة تقول ساعتها هي ولا سمي وكاس هاي بين كل كان عرك رياسي عرك قال أمثلوا جرت عرك إلهي مسلم وفارق قريش وكلوي أمثله روك يعرك يدلوا يدي الله بس هي كلين لكن هو بدن أو ماركتي قالوا يبقى كمل ما عادي يسوي كلين كود دهريين اللي قالوا كلين مرك الله سبحانه وتعالى وحليه رفعه كريه لسمكها جوجي ذي بالله كريه أم الجرب جي
فسوى هوان كي وأقدش هو طبولي أم هو مجديه لو ضوى عليك وأقدش هو مجديه ليلها سماها هبين كيدي مجدو كان يقال وأخرج الله هو في ضحاها مالنتي مالنتو الدين إلى مالنتي يا هبينكي مالنتي يا كلمة بدلي من هو ممكن من هو أفتينا يا كلمة بدلي وحب جواب وبعد يا أيضا أسكالها مع كل ما من هو مذوبها ومكتوبة من هو أفتينا يا سام شغلة يا ورا الله بعوض والأرض ركي بعد ذلك كاس كبعد سماوات كما أنت لوش سميه كبعد دحاها إلهي وفدي مركو رأي إذا المرء أبوري سمدي ولا أبوري أيضا تقول في سكول لقد تقول في مركز كبعد على فدي وحسكود الدمر وألي فدي سيؤدوا الدمناي أنا مرامات الجماعة سيدي مرة الله الدمر وهاي مين عنده كرام وأدوا الدمناي بس كبعد الوالد فدي أخرجه بحي منها سمدي ماءها بيه ذي بصوصار أخرجه بحي منها ربك حقيسي ماءها بيه ذي وإلهي صوصاري ربك إلهي بيه صوصاري ومرعاها داق ذي بصوصاري منكي أو دقيستي سورة الموحي قلمية فمن يأتيكم بماء معين هدي إلهي بيها وذكرتها يا بي إن ما يعرف مركب ميت أو ديدن ما رحت جريتانك على ديدن بوحي وحنا رأي ما هي فيها الفؤوس والمعاول فاسسك ما رحت يبقى الله صبرها حقوق أبيها نوكيناي مركاسا إنبيس بيس اللي قاضيها مركاسا اللي فاسسك حقوق أنا لا كيرمي إنها واحد يقول الله يا وابيه مكت هذيك خلالان كورة وكورة مارس زق ولا كورة مكت ويان واحد بيحقوا هذا أنا بحقوا هذا ويان كاس إلهي ويا ما مركب ويان كي كجري بيز كجري اللي هي فاس حقوقها أنت فاس قاعد وكان بيه وحل تسير يعني من الفلوس أخرجه بحي منها ربكي ماءها بيه ذي ومرعاها داخل بحي داقوا عوسك النبات كصباحي والجبال بورينا أرساها إلهي وكسوي ربكي وكسوي هذا ضميرك وحلقنا يسار ربكي ومكنس إن تاسر المحل سبي متاعا راحين لكم أذيك الذين راحين يولن عنكم نعمريد الذين راحين برواقة سايستان عناوي راحت وصاصوي برواقة اسكت بوخسر وواحد يكون يستعمل لكن الذي كربوا عليه سي برواقة إلى أشوف الإنسان بعد ذكرها إن هذا ساعد والقدر أنتم ماركت نعمة إلهي وسعته ووحفر بدر قف مركو نعمة وهي يدرع على فين كليه فيلي نفت كاس وبحسن هدي تشوف ستو بسوي نفتي وحرتي على ليه قفك النفط قضايا قاعد مركي النفط مستقبل ودوعة هنا ونعمة إلهي نفط تسأل الموسينها نعمة ما يرى مارك مسكح الموسيقى كمذا عقل الموسيقى كمذا درين الموسيقى كمذا إن أورك الموسيقى كمذا قفك هدوس أورك ركاب هدوس أورك وحوين واحد ضد واحد جرى أورك لقى قاعد وح عرفون إيه وح أروها يسوق مذيين لباي أورك اللي قاعدين يقول أن ترى هذا هلي الهابي ما وح البواسي صار وح كستو عرفنا إيه وح كستو أورنا أور ما دريمة يوم مركب يا دريمة كرا عرفت أسقف النعمة داس لا يخالى دريمة كرا أما إلهي ما رتبوها على شيء إنه وافق وحجر أرجع أكلم استنكاس إلهي كسيو أقل بوجهته هدي إلهي أقاطه مركز ودريم سنعمة القاطع بقد مركز على الركون خطوة
oo arag dhanba iska soo xiranto oo gacanta in lagu qabto maahana aad waxba ogeyn dhigaha haddii lala tago maqalka oo maanta oo dhan faraha lagugula hadlo qofkaasaa dareemi kara nicmadaas lugaha haddii inta lagaa jabiyo guriga lagu fariisiiyo oo jilbaha ka dhaqaaqi weydo oo inta lagu qaado maaragtay qoobabka lagu geliyo maaragtay caag lagu geliyo caagii shaqayn waayaan qofkaasaa dareemi kara nicmadaas xaraftii orda kugu jira marka waxaa lagaa rabaa ilaahay waxa la nicmadiisa haddaa dabcada inaad tirisaan ma tirin karnaa laakiin maxaa la iska rabaa had iyo goor inaad hoos u tiraado ilaahu nicmada igu socoto oo tirada badan loo aana koobi karin ilaa waa kugu shukriye shukrigana waxaa ugu fiican wax xun oo ilaahay kaa reebay inaad ka harto ilaahay adoo ka cabsanay waxaa wara ay sir kuu noqdaan haddii waxaa susus kaa noqdaan waxba ka helaysa lugooyay kugu noqonaya shuuru celintu waa inay adiga gooni kuu noqoto oo ilaahay aad gooni ugu shukriso maa meeshaas waxaan uga soo baxnay qoladii diidanay bacfiga soo bixinta diidanay oo xujo cad loo dhiibay xujadaas oo xujo kooni ah koonkaa laga tuso samada laga tuso dhulkaa laga tuso haddana nicmadii ilaahay uu siinaya xataa dhinac laga tusaya haddana markaan meesha waxaa loo noqonaya insaanka hadba si wax loo tusanaya qiyaamadii baa haddana la soo hordhiga daliilkii kooniga ahaa oo samaawaadkii iyo dhulkii iyo marka waxba ku anfici waayay haddana waxaa la leeyahay kaar kugu dhacday qiyaama soo socota qiyaamadaas hadday timaadana qof walba wixii adduunyada kusoo sameeyey unbuu helayaa bas camalkaaga hadduu ficnaana fa khayr hadduu xumaana shar buu noqonaya warjoog hadda isdaba qabo arrintaas marka arrintii qiyaamada la soo bandhigaya suurad walba waa arkaysaa suuradaha markigaa waa u badan yihin qiyaamada soo celinaya waxaa loo soo celinaya qalbigaaga inay ku noqdaan qalbigaaga ay rakisto waa la socotaa haddeer masaajidka hataan ka baxno shaqadeena iska qabsanayna bes xoogaa yarka kitaabka aan dhegeysanayno ama akhrisanno waxa laga yaaba xoogaa in qalbigu joogo hadhowda meeshana aan ka qabsanayno markastoo lama rabo qalbigaasa waxaa la rabaa in lagu rakiso lagu adkeeyo qiyaamada iyo xaalkeeda in lagu adkeeya fiiri marka qiyaamadii baa laga hadlaya fa idaa jaa-at iqaamatu waa midii afaraadna masaladii waxaa weeye shanaad waay tii shanaad waay fa idaa jaa-at iqaamatu midii dabooleysay hadday timaado alkubraa ee weyni yowma maalin iyo tadakaru insaanku uu xusiisanayo maa sacaa wuxuu ka soo shaqeeyey uu xusiisanayo oo burisat iljaxiimu jaxiimana la daahiriyo liman yara axadkii arkahaya likulli raa'in qof kastoo wax arkaa uu u jeedayo naarta jaxiimo halkaan iska balabsanaysa u arko jawaabtu waxaa weeye qada allaahu bayna annaas ilaahay dadka dhexdiisa xugminaya maantaas markii qiyaamadu saa u dhacdo dadka dhexdiisa waa la xugminaya waxaa la yidhi markii ay timaado adaamatu lkubra daamada kubrada waa nafkada dambaaliga waxaa jirta laba goor oo la afuufahayo suuq la afuufahayo malagii afuufi lahaana waxaa layidhi wuu taagan yahay hadda heegan buu yahay ka warrama malagii afuufi lahaa wuu la taagan yahay heegan buu leeyahay xadiisku saas sheegay marka mid nafkada hore markii la afuufo dadka dhan ayaa dhimanaya midda labaadna dadkao dhan baa la soo saaraya banaanka imaanaya annagoo fushkax la ordayna imaanayna oo qof walbaaba waxaa la yidhi uu qolof qab yahay boori qab yahay qaawan yahay kabala yahay uu imaanaya halkaan soo taagaya ma lahan ninkii madax male boqor male suldaan male shiikh male macallin male kulli waa la wada booriye qaawan markaasaa caaisha waxay tiri oo rasuulka ilaahayow qaarba qaarso ma fiirsanahayo maaragta markaasuu alamru ashad arrinku maanta arrintaa waa ka wen yahay in qof saa u fiiriyo buurihiisa fiiriyo waa ka wanta arrintu ruux walba yaa nafsi rasuulka wuxuu leeyahay ambiyada mid walba wuxuu leeyahay ilaa maanta farki ilaa maanta iga badbaadi marka daamadu waxaa weeye maalintaas nafkada dambe ay dhacdo
qofku wuxuu xusuusanaya wuxuu soo sameeyey hadda annaga haddii hadda adiga lacag kasta lagu siiyo buu yidhaahdo wixii aad soo samaysay oo xumaanay tasjiil ku samee qor wixii wanaag aad soo samaysay u malaynaya wax badan inaad sajili karto hal waaweyn waa laga yaabaa waxyaalaha waaweyn inaad sajisho waa laga yaabaa laakiin maalintaas waxaa weeye wax walba hortaada la dhigay weliba hadda waxyaalaha ku dareenaa jiro waxyaalaha aaladaha wax duubahaya waxaa arkaysaa wax waa hore la duubay oo hadeertaan sideedu u soo baxaya dad dhintay oo waxaa arkaysaa hadlaya marka waa dareen lagu dareensiinayo sida maanta ruuxa dhintay oo horteeda uga daldalmayo u hadlayo in annagana marka nala soo celiyo wax walba aan ka warramayo camalkii aad soo samaysay yatadakaru insaan wuu xusuusanaya maa saca wuxuu soo sameeyey ka warran maalintaas xusuuskaasi muxuu kugu yahay waktigaasi wakti ma yahay xusuusi wax kugu taala waa maya xusuustu wax taraysaa waxaa weye markaan aan joogno saacaddan aan joogno way qofku inuu gadaal ugu noqdo wixii uu xumaanoo sameeyey intuu xusuusan karo uu ilaahay weydiisto ilaahay uu ka sii daayo oo u daayo ilaahay had iyo goor qalbigiisu inuu ku jiro in adiga miyaa hal dambiyo lagu dhaafay miyaa ogta waxaa laga yaabaa 20 sano 30 sano 50 sano 60 sano 70 inaad sii marayso hal dambiyo ogtoo lagu dhaafay lama waxaa laga yaabaa mid walba inuu kayd ku yahay meel ku yahay arrintaas marka waxaa lagu qaabili karaa kaliya waxaa weeye inaad had iyo goor ilaahay ku bariso maaragta ilaahay inaad mar walba tiraahdo ilaahu ii dhaaf ilaahu addoon waxaan ahay caasiya ii dhaaf cisyaankayga aan geystay haysdhihin marka adiga nin fiicanaad tahay masaajida aadaa wadaadaa tahay marna haysdhihin qayb kasta oo timaado waxaa la sheegay wadaadda hor inay horkacayaan shaydaanka jamaaco kasta oo timaado shayaadiinta wadaada horkacaya waa la arkaya maxaa yeele isagaa u banaynaya hadda muusikada maaragtay adduunka hadda markaa fiirsan muusikada waxaa loo bixiyey bandhig fareed baa loo bixiyey waa shay xaaraam ah wey aqoon zamaankana waxaa la sheegay shaygaas inuu ahaan doono shay fidi doono inuu yahay masiibo fidi doonto inuu yahay culimo iska banaynaysaa jira wax dhow male durbaanka la iska garaacay shidaamale qaar baa dhahay ka warramo maxaa marka la rabaa wadaadaa baneeyey iyo sheekahaas iska daa shaygan la yidhaahdo bandhigfaneedka iyo naagaha qaaqawo iyo shaydaamadan iska daba yeelaya wax diinta ogoshahay oo ilaahay ogolyaa lama arko weliba waxaa arkaysaa adigu qaada raadsan maysid ragga masaajidkan joogaa ma raadsanayaan laakiin meelo ay kugu imaanaysaa jirta aroos baa lagaaga yaraa waa kuwan banaagii qaawanaa iyo nimankii muusikada garaaca taas xataa lagaama yeeli maayo war hala daay haddaad tiraahdo waa lagula yaabayaa ama tasaa lagu dhegay saasaa lagu fiirin wadaadku muxuu sheegaya xaggan ruuxooda waa iska wadanaya ma garan adiga marka maxaa lagaa rabaa adiga arooska adiga aa leedahay durbaana geyn durbaanka saxa geyn in la marxarado hal durbaana la garaaco wax dhibo male laakiin hoola inta soo karayso inaad geyso maaragtay meeshaan oo naago iyo nimo qaawan aad isku keento oo weliba aad meeshaan ka rabto bal dadka markaa fiirisa dadka meel baa wax si ka yihin guri laga rabo dadka gaalada ayagu hadda waa gaalaba way kuwaas iska bedel laakiin qof muslima oo guri inuu dhisan raba oo gurigii munkar ku bilaabaya ka hor wadaadaa loo yeerayo kale wadaada kaale xoogaa qur-aan akhri asaga wadaadka xoogaa qur-aanka waa akrinaya intuu joogo durbaankaa la keenaya ninkii allaha u naxariistay sheekh maxamed rashaad ayaa waxaa laygu yidhi waxaa la sheekhu gabar baa nikaaxinaysaa imow marka nin diintiisa ku adag buu ahaa ilaa khayr danaa siiya waayahay meeshuu tegey markuu meeshii tegey waxaaba jooga nin yurub laga soo kariyey yurubtaas kale mari ingiriisku jooga yurubta kale laga soo kariyey ninkaani muxuu ah koox buu wataa balaayo wadata markaasaa ninkaani waa bahal qoomka cayaarku aad u yaqaanaayo cayaartaasu inuu tuma laga rabo maaragta ninkaani aniga wuxuu yidhi nin baa sheekh meesha ka noqon haye labada iyada
sheekh mooda noqon karneen qof ha loo daayo inta la isfiiriyo waxaa sheekh ninkaan dhowr kun lagu soo koriyey kharashkiisiina maaragtay waa horaa la diyaar marka adigu barnaamijkiisa may wuxuu yidhi ninkaan sheekha ka noqdo meesha sheekhi meeshaasuu ka tegey hadda wadaad miyaa la weynayaa adiga mid xawaagiisa qaadanaya weyn maysidii mogta midaa loo yeeray midaa xawaagiisa qaatay bas waxaa la rabay mataqaana wadaad meeshuu ka kacay inaa adiga iska daysid wuxuu uga tegey inaa uga tagta adiga lagaa rabo dadka oo waxaa la yidhi jazaanka xoolaha qala waa dadkii hore dadkaan maaha miiska oo xoolaha ku qasho haddii uu maaragtay laga erayo inta kale waa ka xishootaa in miiskaas jazaanka uu ka tegey inay xoolaha ku qashaan ilaa nin saaxiibkoodaa laga eriyo mogta nin wadaadoo diinta xaqaa dadka u sheegayo gaalo maaragtay oo kacyaar wadan diidan baa wadada soo jiiray xawaagiisu ka qaatay fursad weeye maaragtay فإذا جاءت الطامة مصيبة مركي تبعته تي دبوري سريع طامة مدة دبوري سريع قالوا أنا مدة ينسو الدنيا هذه مصيبة كان عادة هذا واحد يقول إيه سوماليا أوابا كان عادة سورة محمد ميلو حاجة تبروا هذا ينخ الدنيا مسك سعود الدنيا مركو حواي ميل بعد الدنيا كان عالي مني ميل وابروا لكن maalinta arrintaa qayb dhacdo waa mid dabooleysa waay qolo ay daynayso gobol ay daynayso qaarad ay daynayso midna laba arko fa idaa jaaat ittaamatu tii dabooleysa markay timaado alkubraa ee weyne yowma maalin yatadakaru insaanku xusiisanaya maa saca wixii uu soo shaqeeyo camala min khayrin wa sharin wax alla wuxuu soo sameeyey wuu ogaanaya maalintaas وبرزت الجحيم جحيمنا للظاهرين إذا هذا الشرط يدو حوالي ونودم بيعه فإذا جاءت الطامة مد الدوري سمركي تماتو الكبرى ويني يوم مالي تذكروا إنسان خصوصا ما سعى وحي المسلمين وبرزت الجحيم جحيمنا للظاهرين لمن يرى أفك أركي أفك سو أركي وجيه إلهي المؤمن يا أتفعيز جواب ساسوي هذا الكاس ما حفهم كذا قفك إذا أنا إني جواب شرط روبا هم طيب قفك دريم كراية دريم كراية كذا ليش ناس مركي لقاه صور رمي أنتي شنات أو صورة إكهل ليسي أو أهيت أنتي قيامة ممكن يوصل شيء هذانا أنتي كهل مش شيء ومدي لحد ومحيط أتاس بس هو تيتو دبادو تيتو دبادو أنتاس وحوي دتكي إني لبق قيبان نقولها سيد هذا لبق قيبان لويه وما أنتاس لبق قيبان نقولها هذه مركز كفير لبق قيبان بدأ نشوفه فأما من أحد ضغى حد قدبي وهو آثر دورتي الحياة الدنيا نرشي دوي دورتي فإن الجحيم نارت الجحيم الإرادة هي المأوى ماشي صديقه وهو عياط وأما من أحد خاف عصدي مقام ربي يسلك كل كيس كعصدي إنه ربي يرتقى يقف في كعصدي ونهى كرهبي النفس نفتي عن الهوى كرهبي فإن الجنة جندي هي المأوى مكان دقس وماشس صديقه أم قريصة وماشس جنة أم قريصة dadku marka qolo saddexaad ma jirto ima inuu qof uu yahay xad gudbay oo adduunyada iska raacay qofkaasi wada waa lagu sheego dariiqiisu halkaasuu maray duqyaanku macnaha waxaa weeye qofka isyaanka ku xadgudba kufrigana ku xadgudbaa laga wada سورة الحاقة مئة مركي لقاها لهي نوح ايوه قال لما طغى الماء حملناكم في الجارية بيه مركي حد قدبين ضغاء قوة بالوفسرة لكن معناها يوحوي بيه مركي كر هوس الشريه مادين بحملناكم في الجارية وانا واتي الوحن باري دونت الوحن باري
marka daqaadaas macnaheedu waxa weeye biyihii baa xad gudbay oo kor iyo hoos isaga yimid samadii iyo dhulkii baa isqabsaday biyo markii nabi nuux doonta la saarayay oo qoomkiisa la halaagayay marka hadda macnaha waxa weeye kani wuu xad gudbay oo xad dhaafayo isyaanku ku xad dhaafay gaalnimana wuu ku xad dhaafay labadaba waa bacdo adiga marka fiir isyaanka iska ilaali kolba qof muslimo oo masaajid ku jiraa tahay haddaad isyaanka isaga jirto haddii saa walba baxda waa adag tahay caasi waa noqonaysaa mar walba isyaa waa imaanaya laakiin waxaa rabaa inaad la daba joogto حسنات على دم جبت على العرب وأثر الحياة الدنيا نرشي الدنيا مدورتك نرشي الدنيا خطر وهاي مارت ووف ودبا وبحاول أنا يقول تاي وحن أجينا يوحنا أجينا واحد الدنيا بد بالكذي برواقة دي أجينا ووحنا أجينا لكن آخرة دي جنة دي برواقة دي جرت وحنا أجينا معه marka in badan oo naga mid waa maaragtay waa nala tegaysa adduunyadaas wax weyn ugu noqonaysa adduunyada markay kula tagto waxaa ka mid ah baa ku fahmi kara wixii ilaahay kugu lahaa inaad bixin weydo zakadii baa ka mid zakadii waa diiday ama xeelaysi baa gashay dad waxaa jira ilaahay inta xoolasay xeeleeya maaragtay barnaamijkii maalin qofkii ku dhow zakada ka dhiga isagoo dariiq maraya qof ku dhiga waa gaajo qof gaajana warqada ugu xigto zakada ugu kale ma asaas ka zakada waxa weeye waa xoolahaaga barwaaqada ilaahay ku siiyey adigoo ay kugu adag tahay inta qayb ka jirta inaad bixiso saas laga dadka oo miyiga ku noolaa xoolaha jecel kuwa magaalada waa la mid lacagtiisa u jecel yihiin mid ayaga ka mid ah waxa la yiri oriyo zakada waayo bal waa isku dayaya hal xira saaka neef geela la soo qabtay neefka geela buu adkaysan waayo markaas uu xarga laga jaro jirkii waa dhaqaaqay waa neefkii la rabay inuu bixiyo mogta وآثر الحياة الدنيا نرش الدنيا دورتي هالشان إنه سيجوكتو ربا ماركت حولها مركو حلقات ربا واجبات إلهي كساري إن الدنيا كدورا ماركت وحي إلهي كساري هذه ذكاذ كلمة تدكي وقاعدة لمنها هذه وصدح ذوقتها وعنسا حلقات ربا ماركت إنه أشتبه سوحي إلهي كسير حلقات ربا وحولها سأل كدبتو هذه قراءة هذا وربتا بحينية وآثر الحياة الدنيا حقيقة جلس فإن الجحيم الناس الجحيم اللي هي المأوى مكان ضمن كيسو وميشس ميشو قدم معي مأوي سوا ميشس وأما من أحد خاف كعصر مقام ربي استاجد يسقف في كعصر ما كم إذا رب فورتجس ونهى النفس نفتي كربة عن الهوى هو كربة فإن الجنة هي المأوى ما يفقد ما يواجه الحسن أبو بكر وكره أيضا شيئا حيراي سيدنا أبو بكر فأوحوا لها الضمورة الضمور بدن بولها نين قريبها marka adoomada badan uu lahaa waxa weey markuu arko qof adoon uu soo gidi jiray markuu soo gado islaamnimadu bari jiray islaamnimada markuu barto markaas ay jiray socod wal xarin adoomadana waa garanaysaa waa muslim iyo gaal diray markii gaaladii baa laga adkaaday dadkii laga soo qabtay way dadka laga soo qabtay wala islaamnimada diinta loo sheegaya adoon baa laga dhiganayaa hadduu qofkii fiicnaado in la xoreeyo islaamnimada maaragtay uu qaatay in la xoreeyo loo baahay haddaba badan marka saas ah u joogo marka mid adoomadiisa ka mid ayaa wuxuu keeni jiray uu soo shaqeynaya mogta adii xoolaha ka bixisa ama dhaqaalaha kaa galay uu soo shaqeynaya marka maalmaha ka mid markuu xoolaha u keeno wuxuu dhihi jiraa Abu Bakar xagee ka keentay xoolaha uu sheegi jiray maantii dambe ayuu cunno wuxuu keenay uu soo gaday miya mise asagu sidoo ku keenay mise uu keenay Abu Bakar uu cunno markaas uu Abu Bakar ma dhihi jirin awal waxay dhihi jirtay xagee xoolahan ka keentay maantii ma aad weydiin waasi markaas
markaasuu yidhi waa halmaamay laakiin hadda ka war xagee ka keentay waxaan ka keenay curaafaynta aad u aqinay geed curaaf aan ahaa marka wuxuu yidhi curaafayntii aan aqinay dad aan wuxuu igu curaafayn jiray aan arkay dadkiiba curaafayntii hore aan ugu curaafayn jiray waxay ugu siiyeen la warniyo ninkii Soomaali fiicnaayo kitaab rabga awaaga qaado marka xawaaga saasa ku keenay Abu Bakr wuxuu bilaabay inuu soo qaacin mar alla markuu wixii caloosha ku jiray uu iska dhameeyay ayuu wuxuu yidhi yaa rabbi maa fi lcuruuqi xabasta ilaahu waxa xididada raacay adaa ku xabisa meesha anuu ma soo saari karo rabbiyo qofna wuxuu rabaa inuu ku ilmo karsado baashaas goonida iskaga bato kitaab gaabdhowdu way jiraan mar walba way jiraan wadaadadu waa ka mid kuwa kitaabada rogaa jira kuwa dhulka faariyaa jira ma garata kulli waxaasoo dhan iska ilaali kuwa kitaabka kuu fiirinayaa jira oo saas yidhaahda aayaddii soo baxday aayaddii saa lagu soo baxday bis wey aayaddaasay ka faashanayaan ayagu kuwa hadda khubarahina way jiraan oo barnaamijyo shaydaan iyo balaayo isku soo duwan oo abaaburana jira oo wax badan ظلمي جهل أبيه وحش عن العلماء مركا معناها أبو بكر أيضا وحلوه كان وحوي نفتي زوحي ربتي ونفتي أسوأ وين كم تجي أنا قف إنه وفي عنه بنقول له هذا المؤمن أنا اللي هذا على شيء بس كده يعني بس كده أما وحال لي أمي له وريه أنا معرفين هذا سوء عرفين سي وحي ويسكلا على وياه أركز أنا كدان كهيجي دان كهر إنه كردوية لكن وأنا الكشف عنها تذكر أنا رعنا الكهرباء وياي في توضوات ويترهم وصورة مكانس ومحيط هاي إني قيامتي ويدينا يش دائما محمد يقول ما هيروح إليه horta qiyaamada aad sheegayso oo mar walba faidaa jaat as-saakhatu waa soo marnay faidaa jaat ad-daamatu waa soo marnay mar walba qiyaama imaanaysaa la leeyahay horta waa goorma maxay ugu talagaleen marka qiyaamadii waxay ugu talagaleen waa maxay maxaa u diyaarsan waa edeb darro maaragta waxaa la yidhi marka yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan عن ساعة قيامة الدنيا أيانا مرساها قرمي سجنانسا أو دعيسا معنا أيانا مرساها قرمي دعيسا قيامة مرساها معناها سجنانسا وهي نوع أو كله دون تيلسي مرشويك أبوك حينها يا وحيا بسم الله مجرها ومرساها بسم الله مجرها مكان دريرك مركي دريريس بسم الله ومرساها مثل لوها كنا يعني وبسم الله مركا مرساها كنا ويمارت ورمي سمناني سا قيامته ويمارت يسألونك وحي كويدينها عن الساعة ساعدنا أي أنا مرساها ورمي أميسا أما نعيسا أما سمناني ساوي مركا النبي صلى الله عليه وسلم waxaa gaaladu ay weydiiyaan inuu jawaab u helo aad u jeclaa maaragta maxaa yeelay waa xujay uga dhigayaan waqti marka nabiga waxaa la yidhi arrintaas waa midii sideedaad baa waxaa la yidhi fiima anta bidikriha maxaa adiga kaaga jira sheegideeda adiga mishaqa ku leedaha maragta جعليسي جعليسي سوينا نمك وجوابته ما هي ساعات قيامته وأري إلهي وشغله وقت يدعس إلهي بقى ما قرأت مركي أنت هذا الشيء اللي قال قيامته دعسه أو شيء كبرلي مارت ليه محمد قالوا شيء لا مارت هذه اللي أجي وقت يدعس علامات القيامة وين شفتها
علامات lagu gartaa way jiraan oo calaamadii hadda way jiraan calaamadaha ayaa sheegi kara qiyaamada hadda oo hadda jira waxa kamid ah dadkii baadiyaha curaadda qaaqawana oo guriyihii dheer ku tartamay mid 6 dabaq dhisay mid 8 ka sii hormaray 9 mid sii dhisay waa dadkii sharciyeynta wax helaysa marka aragto calaamatu qiyaam weeyo laakiin waqtiga dhacayso ilaahay u baa qofku ma jiro nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam jibriil weydiiyay wuxuu yiri goorma qiyaamadu dhacaysaa markaasuu wuxuu yiri mal mas'uulu anha bi'alam min as-sa'il kala weydiinaya qiyaamada la weydiinaya midka weydiinaya kama oga ilaahay baa cilmiga agtiisa marka waxa la yidhi ma anta min dikra ha adiga muskeeda ka ogtahay ma had ka sheegi ka dhaawacan musaas kala weey ila rabbika ayaa muntaha macnaa yantahi cilmuha cilmiga qiyaamada wuxuu ku intoonaya alle yantahi cilmu saa'a asaga garanaya cilmiga saacada alla asaga garanaya shaqadii nabigu lahaa loo sheegay marka inma anta lama anta adu mundirun ba tabdigaayat ma yakhsha qofka ilaahay ka baqaya wadaysa adiga shaqadaadu qiyaam waqtigaas ay dhacaysa bishii bilaa dhacaysa sanadkii bilaa dhacaysa adiga shaqadaadu ma ee maxay tahay ina qofka ilaahay ka cabsanay xaq u sheegto يسألونك وهي كويدينيا عن ساعة كويدينيا أنا مصاها مركي دعيس ورمي دعيس عليه فيما أنت من هذه أذكرتها من ذكرها شيء جديد مارتي وأترى وأن هو دعيس عليه ما حكاه سيوي معنا وحكاه سيوي مارتي إلى ربك قال منتهى علم الإلهي كنت هنا ألا أسقعدك المجد هذه بحيث شغلة إنما إنك لما أنت أذوب منذر مدقها ياتعي من يخشاها قفكي قيامة كبقها آيات الدقي سعادو سقالك مدي مدى بيسواتك ومحيطة الدنيا سيكستو قفك لو برواقية وحكستو أولاسي ما أنتو لنتو قفك للدنيا سو قيامة مركي دعاسو دادك داني صوابيح مهيان مركي صوابحان haddii la weydiiyo la yiraahdo inuu adduunyada meeqa soo joogto boqortooy haduu soo haysan jiray wuxuu leeyahay maalin barqadii ama galabtii haddii boqolaal sano la siiyo saas weeye kaannahum waa ayagoo yowma yarawnaha maalinta ay qiyaamada arkayaan lam yalbathu waa ayagoo nagaanin ilaa cashiyatan galab aw duxaaha barqankeeda كأنهم وابايغو يوم يرونها مالنتي أركاها قيامة العدد لم يلبثوا وابايغو نغانين إلا عشية قلب أو ضحاها أو برقا كي انت أسوء بمارك وحيلي حتى لي ورميغا الدنيا سو جوجتي أما ماركتي الصبح أما قلب سو جوجتي أرد انت أسوء الدنيا مركو أغو ساس واي هدو وحوين أدقر هذا وادريبك ناهي هذا عمري غاية قدار أمو marka gadaal uu noqdo waxa muuqda shalay in adduunka tagay oday weyn aad tahay shalay in aad isku meelaha soo jifis deerkeeda dhowmay dadii inta bal gadaal tiri ma yara ma garad adduunyada marka hadhow markii la tago adduunka meelaha soo joogtay maalin barqankeed ama gaartay intaas soo joogtay marka waxa galaysa wax xisaab ah oo ku xisaabsan ma aha marka waxa yeeshaa waa u jeeda adduunka san way ka faa'iideyso oo adduunyada dadka ka faa'iideysan noqo Allah subhanahu wa ta'ala